badan baan aamusnaa wax badan baan socday wax badan baan xeeriyay wax badan baan magacayga iyo maalkaygiiba ka tagay aniga iyo Soomaaliland haddaan adduunyo iyo aakhiro mid iskula simin hooyaday ceeblahaas adduunka wax kale igu keentay de 2021 anoo timaha la jiidanaya lagu bilaabay waanu ku dhamaaday xanuunka COVID-ka iyo dhibaatada igu hayaan maxaan ku dhahdaa meeshan la igaga hayo waxa weeyaan marba isla bilowdeen de marba midhaas la dhamaanayaan fanaanada Safiya Tusmo oo sheegtay in sanadkan 2020ka uu ku dhamaaday weerar saaka ugu dambeysana hantideeda la burburiyay iyadoo carabawday cidda burburisay hantideeda doonaysana in ay dhulka la sinto intayna muuqaalkan u gudgelin daawadayaal waxaan ka codsanayaa in aad like saarto si uu gaaro dad fara badan fanaanada Safiya Tusmo oo ku sugan magaalada Boorama iyo guud ahaan gobolada Somaliland oo dhan ayaa waxay saakay soo gashay xaaladii hore xaalad ku duwan iyadoo ku jirto iyadoo guri ay halkaasi ka dhisanaysayba barubar cagaf la mariyo oo dhulka la simay fanaanada Safiya Tusmo ayaa waxay carabawday in dad gooniya ay weerarkaani ku wadaan tan iyo sanadkan markii uu dhashana weerarkaani oo hal meel uga socday haddana ay doonaysa in ay xaqeeda soo dhacsato Safiya Tusmo ayaa waxay sheegtay in gurigeeda kaliya la burburiyo wax kale guri kale aan la burburin wadana uunan u dhaweyn Safiya Tusmo oo aad u careysan ayaa waxyaabo badan afka ku dhufaneysay iyadoo sida ka muuqatana ay iska ilaalinaysay in ay intaas in ka badan ku talax tagto waxaan idin daawadsiinayaa barnaamijka dhameystiran hase yeeshee intaanan fiidiyowga u gudagelin waxaa jiray in iyada iyo Saciid Gahayr oo hadda ka hor ay dhibaato isqabsadeen ay qoraallo isku weydaarsanayeen Facebooka tan iyo shalay iyadoo ay isku haysteen hees ay soo saartay Safiya Tusmo heestaasi oo ay abwaan u dhiibay awaankii Safiya Tusmo u dhiibana uu sheegay in aynan wax shaqo ah ku lahayn heestaasi qisada Safiya Tusmo Safiya Tusmo ayaa heestaasi lagu soo weeraray iyadoo Saciid Gahayr ay walaalayihiin Cabdi Ciise uu ku dhaga hadlayay tan iyo shalay saakana uu weerarkan uu ku xigay daawada gurigayga saaka laga bilaabay Boorama isagoo la igala hadal ay qiimeyn si la dhihin oo dhulka lagu simay shaqaalana uu ka shaqeynayo nimankii shaqaalo la leen gaaday sida aqalkayga saaka loo galay Firiya gurigayga daawada waxa ku dhacay saaka Somaliland adduunyada ilaahay ruuxda inay igala tagtay in yarbay ma ba hadlay waxaan ku hadlaaban garan lahayba qof nool on la tashan maalkiisa loo gala miyaad aragteen wali halkan highwayga laga dhigay aqalkayga baa dawaan haya fiidiyoodii ka duubay ilaa iyo halkaas guri dhisan buu ahaa ka warama shaqaale waa ka way saaran yihiin way shaqeynayaan arag saaka laga bilaabay gurigayga dhulka lagu simo ka sheekeeyay wax badan baan aamusnaa wax badan baan socday wax badan baan xeeriyay wax badan baan magacayga iyo maalkaygiiba ka tagay aniga iyo Soomaaliland haddaan adduunyo iyo aakhiro mid iskula simin hooyaday ceeblahaas adduunka wax kale igu keentay de daawada gurigayga Firiya wax ku dhacay agdeerkii inta yar baa hadhay ilaa halkan buu ahaa ilaa intan inta halkaas ugu joogay deerka kala agtiisa highwayga halka mara Minneapolis ma marade xilli guriyo la dumiyaba la islama gaarin wadooyin baa socdaa la lahaa ana la iga bilaabay arka Firiya bal sababta keentay qof gurigiisa in carfiidad la galiyo de idinka ii sheegi ka sheekay gurigayga arka 2021 anoo timaha la jiidanaya lagu bilaabay waanu ku dhamaaday xanuunka COVID-ka iyo dhibaatada igu hayaan maxaan ku dhahdaa meeshan la igaga hayo waxa weeyaan marba isla bilowdeen de marba midhaas la dhamaanayaan arka Firiya ka sheekay inta yar baaqalkayga hadhay afarta maqsin baa hadhay
intan baa la yidhi hadda jiingada ka furaa la yidhi intan jiingada u sheegaa la yidhi inay jiingada ka furato ciidankii saaka loo soo diray guriga dumeeyey waxaa la yidhi intaas waxaan ugu daynay jiingada inay ka furato jiingada ha ka furato u sheega haddaanan garaco gurigayga ku raacin haddaanan gurigayga ku raacin gaalnimo ha laygu tilmaamo gaalnimo haddaanan nimankii gurigayga dumeeyey raacinin weligay anoon caytamin anoo aamusan anoo lay jiidanayo unbaad u barateene maanta laga bilaabo wixii dee dhagihiina ku dhaca iskaga dulqaata tusma waa aamusan tahay tusma waa miskiin tusma waa maxay tusma waa kan fiiriya lama gaadhin waqti guryo la dumiyo wadooyinkii waaweynaayo oo keliya hati baa socday qofka gurigiisa la duminaya xataa in loo qiimeeyo wuxuu xaq u leeyahay la siiyo wuxuu xaq u leeyahayna dee maaragtay waqti la siiyo hadduu jaajuur ka furanayo hadduu jiingad ka furanayo hadduu degan yahay oo alaab ka qaadanayo time in la siiyaa bay ahayd afartii wadooyinkii waaweynkaa socda kuwii shaxda xataa weli lama bilaabin xilli guryo la dumiyo guri la dumiyeyba ma jiro boorama dee aan gurigayga ahayn dumisna islama gaadhin ma dhowaa dumisnu dee midhaa waa marka dee la kala baxee maalka la kala tirsado dee weli shaqada way socota beri arka alle iyo wax idinku stay tuned baan idin yidhi stay tuned waxaa maanta boorama ka dhaca iska daawada uun haddaanay boorama aqalkayga raacin iska dhaaf garaca dumiye magaalada haddaanan gumin dee waxa weeyaan tusmadii runta ahayd maanta daawanaysa intee miskiintii aamusanayd darbigeedii la dumiyey aqalkeedii la dumiyey bay raacday dhanka kale Siciid Maxamuud Gaheer oo ah in adeerka Cabdi Ciise Cajuun ayaa waxa uu 24 December waxa uu soo dhigay muuqaal ay Safiya Tusmo calanka Soomaaliya sida kolay joogtay dalka Mareykanka waxa uu ku soo qoray waan ka helay luuqda wanaagsan ee hobalada Safiya Tusmo ugu haystay calanka Soomaaliya barnaamij heesa ah ayay maantana ku qabatay Hargeysa hambalya barnaamijkaasi oo buuq fara badan ka dhaliyay team Cabdi Cajuun oo ay dibsadeen heesaha ka baxay qaar iyadoo halkaasina ay ka muuqato in lala gogoosanayo Safiya Tusmo sidoo kale Safiya Tusmo waa ay ka soo jawaabtay arrinkaasi oo waxay uga soo jawaabtay taxyar oo ay ku soo qortay oo ay tiri dad baa jira xirfad iyo tabmooda xasarad iyo buuq abuura xarfaan baa jira u heelan haldoorka xagxagashadiisa haldoorku waa Safiya Tusmo xuraanka iyo bala afuufka rag bay tahay xeeladooda oo dhulka lala sameeyay Siciidow reer Saylac looma sarbeebo waan kula joogaa Hargeysa now or never oo ah hadda iyo weligaaba